والله والله فايست وسجال ساعي بركة ورقلب نمو يا وياي برون على أبوه هذا عيارتان وحقوق على مانشستر سيتي marka la fiiriyo inay soo balaaye soo gateen is adkeeyeen Rodrigo fit waxaas dhan marka la eego City ugu cadad ciyaartan laakiin waa Manchester United walaal waxaan waa maqaarna calaabugu waaye ya Liverpool oo bahlaysan ay Arsenal ka badi weysay Liverpool oo easy iska magaca Liverpool ay kula ciyaartay Arsenal maxaan islahayn naga daawo waxaas Liverpool la'aanta haysato hatta ay ka tagi ka maqan yahay iska ma celi karaan naga daay Allah ay waxay celiyeen nimanka la yiraahdo Arsenal ya Chelsea oo bulukeet iska maanta number laga haystay aakhir saac Manchester celisay marka maqaar wana halabo marka wacad cadaan way jirtaa yaa wacad City laakiin wax kasta ka suurtagal banooniga Liverpool baa soo gali doonta Burnley bay la ciyaaraysaa xilli marka iska bulukeeti kulay deebal wax ka qawayn durkooda gala Chelsea Brentford oo xilliga bay soo galiyeen Arsenal markay u gambarigtaan City gambarkooda waxay ka qaataan kadib ya u tagayaan Nottingham Forest bay la ciyaarayaan Real Madrid waxay soo gali doontaa afarta galabnimo maanta ciyaaruhu goor raaba la keenay sidoo kale wax weeyaan caawa sidoo kale München way ciyaari doontaa 8 iyo barka Talyaaniga Udine iyo Inter 5 galabnimo Cagliari Juventus caawa waa 10:45 daqiiqo Africa Cup of Nations kulanka u dhaxeeya Nigeria iyo Egypt waa kaalinta saddexaad waxa la ciyaaraya caawa in 7 fidnimo finalku waa habeen dambe marka ciyaaruhu waa ka marka waxa isahaya oo la eegaya labada dhinac Manchester United iyo Manchester City ayaa waxa uu yahay kulanka indhaha lagu hayo hooyaan waxyaabo iyagu ku saabsan indhaha ku sii hayay oo iska soo daba dhacayo kulanka looga hadlayo waayahay hadaba ciyaartan labadan u ciyaarayaan saddexdii ciyaar ugu dambeeyay mar City adkaatay mar Everton la galay marna United baa adkaatay macnaheedu ciyaarta misaadaali kartid marka lagu leeyahay kooxda homeka gurigeeda lagu garaaco mar hasada daweydo kale City gurigeeda lagu soo garaacay haduu arki doonaa caawa ina City hadii ay Redevil ay ku soo badin karaan gurigooda yani City Redevil ma yid gurigooda ku soo garaaci karaan waan sugnaa okay waxa weeyaan markay labadan u ciyaarayaan waxyaabo waaweyn ayaa indhaha lagu hayaa kulankii koowaad Maynard baa laga badiyay City baa adkaatay 3 gool ever September bay ahayd laakiin ma dhicin season taariikhda Man United labada ciyaar seasonka in Man City gool ka dhali waayaan waxa ugu dambeysay sidaas dhacdo 7-3-4 markaas maxaa la taqaana Manchester Serbia loo celiyay marka waa macnaha sansan xun waa macnaha hadda seasonka Man City labada ciyaaroodba aad awoodi weysaan inaad gool ka dhalisaan waa xilligii aad hadda ka hor Serbia u laabateen wayaan runtii mid kale Man City hadiiba ay jirto koox ku awood badan Old Trafford inay ku soo badiso waa kooxda qura waxay halkaas ku soo badiyeen 9 jeer waa kooxda ugu badan Premier League garoonka Old Trafford ku soo badisay City Liverpool marka laga tago Afrika gool garoonka ku soo dhalisay City waxay Old Trafford ku soo dhalisayna 37 gool bay ku soo dhaliyeen mid kale United waxay bareejo galiyeen saddexdii ciyaar rasmi Premier League markooda wuxuu xumeed iska bareejo galaan Manchester United bareejo ay noqoto waxay 92 markaas 5 ciyaar xiriir ay bareejo galeen aw City ku soo hartay iyana saddexdii ciyaar rasmi sida United oo kale waxay bareejo soo galiyeen saddexdii kulan ugu dambeeyay markii ugu badan City la arko inay darow saas u badan ay galaan 7 jeer bay ahayd 2009kii waxa kulankan noqonaya markii ugu horeysay laba koox iska hor imaanayaan Premier League iyagoo min saddexdii ciyaar rasmi bareejo ay galeen tan iyo 2001 markaas Spurs iyo City bay macnaha ma taqaana ay ka dhex dhacday ciyaar ay ciyaarayeen marka labada kooxoodba ma badin karaan ciyaaraha 2001 ayaa isaan ugu dambeysay in labada koox maalintii la ciyaaraya mid kasta ciyaari la soo dhaafay bareejo ka soo bixi waayay City bareejo United bareejo wayaan United saddex ciyaar xiriir bareejo soo gashay City saddex ciyaar xiriir bareejo soo galeen yani aanu badin macnaheedu labadoodaba midna ma badin oo guul ma nu gaarin sanad cusub ee 2026 Premier League ama isdiyaal ka war ya وعقبال لبدا dhinac haystabe war maanta mid ha badiyo oo bareejaha ka baxo mid kale Michael Carrick waa markiisii labaad Maynard uu macallin u noqonayo hada kolku milgaaro kooxda ku maamulay saddex ciyaarood labu badiyay hal bareejo ogow laakiin Michael Carrick ninka la yiraahdo barigiisu ciyaartooyga ahaa waxa uu in badan garaac jiray Sunderland oo 16 jeer kooxda la ugu jeclaa waxay Man City uu garaacay 13 jeer halka isaga laga badiyay 8 jeer marka barigu ciyaartooyga ahaa City babtu ka galin jiray marka waa ka Haaland aad buu ugu helaa Manchester United Premier League gool badan buu ka haystaa United
waa ciyaartooy ugu badan City ee gool badan ka haysta weeyaan ciidan 11 ciyaarood 8 gool ayuu ka dhaliyay 3 buuna ku caawiyay waliba isaga ku rug lahaa dhammaan 3 gool markii ugu dambeysay United October ay Old Trafford ku booqdeen markaas City ay badinaysay 2 gool ayuu dhaliyay 1 buuna caawiyay 3 ciyaarta ku dhamaatay marka ninka waa ugu baxda cida sidoo kale waxay City ugu baxdaa ninka ka tirsan Foden ayaa ah nin kale ugu baxda United oo City u ciyaara Foden marka laga tago Brighton 8 ka dhaliyay kuwana wuxuu ka dhaliyay 7 gool buu ka dhaliyay runtii Premier League laakiin ogow asaga goolashiisu Etihad bay ku yimaadaan hal gool bis uu ku soo helay gagada Old Trafford mooyaane inta kale ay kuma soo dhaliyo Pep Guardiola shirkiisii jaraa'id ugu dambeeyay ee galabnimadii shalay uu qabanayay waxa uu kaga hadlay arrimo badan wax laga weydiiyay maxaa saacida tababaraha isuu shaqadiisu haystay ileen bariyahan sanadka cusub sidii loo galay Alonso la ceeliyay tababarii Chelsea la ceeliyay kii waxa baxay United waxa la leeyahay tababarayaasha si ay kooxda u sii maamulaan maxaa yani ay tahay inay sameeyaan kaliya guul result bis wiirna yani inaad guulaysto un baa shaqadaada kugu hay doonto waxa la leeyahay adiga inuu sirtaada naga dabageeyo oo ah waqti dheer aad man iska dhex joogto oo lagu raacdaynin taas wax weeyaan buuri natiijada waa runtii waa ninka horyaalka Premier League 4 consecutive year qaaday weeyaan xiriir ah ka weyn waa oo aan la gashin cidna gashin weeyaan ninkaas awoodiisa ku jooga meesha wuxuu yiri aniga resultigaan ku joogo Manchester City laakiin waxa xaga la soo dhaafay muddo kadib waxa la arkay adigoo 0 ka baxaya way lagu raxday way waaba tii ka jabsaneede kooxuhu kala sabar badan buurmina City waxa uu soo qabtay kadib way ciimamadeen buurmina hadda meel kala joogi lahaa waa la raacday lahaa aan ku soo laabtay arinta Foden iyo Haaland ay ka helaan qoliyaha kan Pep marka la weydiiyay waxa la yiri labada bal ka warna United way ka helaan tusaale waxa loo soo qaaday seasonkii 2023 waxa la Foden iyo Haaland goolashiini aad ka dhaliseen nimanka la yiraahdo United ya 15 kamida 17 gool Premier League aad dhaliseen oo United aad ka dhaliseen 15 kamida iyaga qaatay ya maxaad ka leedahay labada ka hadii maalinta maanta ah ay garansi iga dhigayaan bur goolashooda ay sii wadayaan waan safaya weyn macna booskooda xataa jirq ma gelinay macna yaani haday galad ifurdaaminayaan ilaa kooxdii bariyahan waxay noqotay Manchester City baraje bay noqotay kuwa kale baraje kale weeyaan labadooda manu badin sanadka cusub marka al amuum xaaladu waata kulli ciyaari ugu dambeeyay labadan ciyaareen 9 ciyaar darbi ugu dambeeyay sidan baa loo kala badiyay taariikhda kulanka kan guulaha marka la eego 8 jeer United baad kaatay kuwana 63 jeer koti afar baraje la galay taasna waata laakiin sidii ciyaarta way ciyaaraysaa iyagoo 16 ciyaar la soo dhaafay unbeaten ah oo aanu laga badin kaliya saddexdan baraje un bay galeen mooyaane inta koreysana way badiyeen hooyaan daacadii Rodri hadda lugaha u adkaaday ugu yaraan waxaad arkaysaa inuu dhaawacii ka soo kabtay gabiyahanba Anton Semenyo wuxuu noqon doonaa ayareen ku wareeman si taariikhda saddexdiis ciyaar ugu horeeyay gool aliyu noqon doonaa Jerky aad buu ka xasan yahay Jeremy waa ku fowdaynaya isaga qodiisa marka adiga dad Manchester dad kuma yara laakiin Bruno Alaba weeyaan runtii marka taas waa ta tababar ciyaartan kor wuxuu yaani garsoorayaasha ka codsaday in ciyaaryahankiisa Haaland laga dhowro difaacida laga ilaaliyo laga difaaco salaam maanta kala Kawaan uu ka hor imaanaya Kawaan 6 ciyaarood uu ku rimaad hal gool bis buu ka dhaliyay inkastoo dadka qaar ay leeyihiin Kawaanluhu wuu saarsan karaa canug yar oo gaaw weeyaan Martinez baa laga jeedaa wuu saarsan karaa laakiin ninkaas Haaland wuu celiyaa marka ciyaarta kor wuxuu garsoorayaashu waa in ciyaaryahankiga protect gareeyaan yani ilaaliyaan jugta lagu hayaa asaal la dilaa asaga meeshii foul dhigi lahayn buu isaga ka dhigaan ayuu leeyahay runtii marka xilli Haaland ciyaartan uu imaanayo isagoo bariyahan ay ka guurtay goolkii caadiga inuu dhaliyo tusaale ahaan wax gool ma dhalin Haaland ciyaari ugu dambeeyay yani gool caadi ma dhalin oo rigoor ahayn waa 6 kulan gool caadi ma dhalin alaabiis inuu la korto geeska dhalinay madaxiisi wixiisi ma hayo kaliya roor uu maal u dhaliyo runtii marka goolasha caadiga loo dhaliyo ayaantan odagu lama hayo maxay Pep wuxuu arkaya difaacida wiilkiisa inay si kastaba fanaanada ugu dabagasho maal mid Brighton asoo Haaland buu ceejinay marka wuxuu laakiin baan ku leenahay Haaland aan haysano hatta hadaan gool noo dhalayn buuri yaa tiimku uu caawiyaa laakiin wuxuu yiri jirka waa ka daalayo waan nasiinay wuri maalmaha soo socda taas waa taa marka Haaland iyo Kane bas kan haya horyaalka 20 bay haystaan kabta goolada Europe bay ku dagaalamayaan yaani guud ahaan goolash lagu leeyahayna 3 ayuu ku leeyahay Kane kana 3 gool buu ku leeyahay inta waa Manchester derby Chelsea waxa weeyaan Brentford ina waa ciyaarta ku xigta soo gali doonta runtii ciyaartan waxa weeyaan ma Chelsea ba ciyaartan guul badan taariikhda 10 jeer
saddexdii ciyaar ugu dambeeyay 2-2 eber 2-1 bareejada iska badan marka dambe Chelsea badisay 2-1 ku adkaatay haddaba waxyaabaha ciyaartan ku saabsan Chelsea kaliya hal ciyaarood bay badisay 8 ciyaar soo Premier League oo ay Brentford la ciyaartay warimo xujeedu ku yihiin iska jira way halkaas waxa jooga ninka labaad ugu goolasho badan Premier League ba halkaas jooga ninka raado Thiago sidoo kale Shed Kevin waa nin kale halis badan aad bay labadaas nin yani isu Broniga yani isu soo dhisaan oo ay isula shaqeeyaan iska jira laakiin way Chelsea hal ciyaar bay badisay runtii 8 ciyaar soo Premier League oo Brentford la ciyaartay 3 jeer guul daray 4 bareejo way oo Brentford ku wareegsan tiim be way xujo ogahay nimankaas laakiin saas dhan maxay tahay Rosner waxay tahay kulankan يعني كلن أدق بكويه معي المعلمين تقعد في جلسة بريمير ليج كلن كود جوهر ما بديان تن إبرجي مروج ساري لما كل زديدي كي سيار عباها وزدحي إبر وكوب بدينا أي يا معلمين تكل جلسة سومر بريمير ليج كريا تن مركز لو زديدي هل توبر بقول كفرتي جرين بوتر مو يعني أنتي كلر دم بيكو أتكاتين يقول كفرتان أفر برجو إلا بقول درا مركا روزنر كل هو جلسة بريمير ليج معمول دونا لكن تن لو زديدي هل معلم بس بيجري جلسة oo gool ku furtay ciyaaraha Premier League marka ma fududa macallimiinta Chelsea mid kale asaga dhan wuxuu u sameeyay tababar u sameeysnay wuxuu u sameeyay nin fashionista u sameeyay aktar amal buu u sameeyay ya wala kama fatale ahayn kan bootala way ya mid kale Liam Delap asoo hada koor ka soo ciyaari jiray bariga hal City ninkan tababar u ahaa Rosner kan hal buu ciyaari jiray sidii ku ciyaar horyaalka Delap 8 gool bariga u dhaliyay يا مركا ويز garanayaan inkastoo dilab si kala soo laabtay milo gool Premier League u dhalisay kan ay ka jaban tahay marka intaasna waa Chelsea